kii xalay shir jiraayad uu ku qabtay magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Macharia Kamawa waxa uu uga hadlay xaaladda Soomaaliya ee dhinaca xiriirka diblomaasiyadda isagoo uu sheegay in safiirka Soomaaliya ee magaalada Nairobi si degdeg ah uu dalkiisa ugu laabto halka kan Kenya ee ku sugan magaalada Muqdisho loo baahan yahay in magaalada Nairobi uu si degdeg ah ugu soo laabto kadib wadatashi ay yeelanayaan safiirka dawladda Kenya iyo dawladdiisa. Kamawa ayaa arrintan sabab uga dhigay kadib markii dawladda Soomaaliya ay xadgudub aan taxadar lahayn ay ku sameysay xeerar caalami ah oo uu sheegay inay ku soo xadgudubtay xuduud badeeda Soomaaliya iyo Kenya gaar ahaan dhulka muranka uu ka taagan yahay dacwadiisu ay taalo maxkamadda ICJ ee wadanka Netherland. Waxa uu sheegay in shir bishan bilowgeeda ka dhacay magaalada London ee caasimada wadanka Britain lagu xaraajiyay sida uu warka u dhigay xirmooyin shidaal kamid ah dhul ay Kenya leedahay taasi oo ay Soomaaliya sheeganayso isla markaana ay u muuqato xadgudub maadaama kiiska la xiriira muranbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dacwadiisa ay ka furan tahay maxkamadda cadaaladda adduunka. Kamawa ayaa waxa uu sheegay in wada hadal dhex maray dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladda Kenya wixii u dhaxeeyay 7 bishan oo shirkaasi uu ka dhacay London iyo xalay oo ay soo saareen go'aankaasi in lagu guuldareystay in wada hadal laga garo madaxda Soomaalidana ay ku adkaystay in dhulkaasi ay leedahay isaga oo sheegay markii ay quus ka gaareen madaxda Soomaaliya in go'aankaasi ay qaateen. Haddaba muxuu yahay saameynta ka dhalan karta go'aanka safiirada lagu kala qaadanayo ee Soomaaliya iyo Kenya iyadoo saaki magaalada Nairobi iyo magaalada Muqdisho ay ka kala socdaan gaar ahaan safaradaha Soomaaliya iyo Kenya qorshayaal ay dib ugu laabanayaan safiirada labada dawladood dalalkooda maadaama Kenya xiriir dhinacyo badan taabanayo uu kala dhaxeeyo Soomaaliya haba ugu badnaato dhanka ganacsiga iyo dawladnimada. Ambassador Cabdiraxmaan Maxamed Nuur Diinaari xil safaaradeedna ka soo qabtay wadanka Suudaan ayaa ka hadlaya khilaaf oo waxa waaye oo diblomaasiyadeed oo ku saabsan arrin la isku haysto oo dhulkaas badda oo ceelashaas muhiim u ah oo Kenya ay rabto in ceelashaasi ay kula daarato ama ay maaragtay ay rabto in ay ceelashaasi maaragtay sheegato sida hadda qorankeeda ka soo baxay ku arkay iclaamka ama media waxay leedahay territory oo Kenya ka tirsan waaye oo dawladda Soomaaliya sheegay dhulkaasna waa dhul Soomaaliyeed dawladdu xaq u leedahay inay sheegato horena u sheegatay qaybtii hore oo dacwadana dawladda Soomaaliyeed way ku guuleysatay midaan marka waxay tilmaamaysaa in jinac laga raadinayo dawladda Soomaaliyeed marka mowqif cad ka qaadatay arrintaasina shacabkeedu iyo dadkeedu ku taageersan yihiin saan aaminsana iyaga meel fog gaarsiiyay laakiin ganacsi waa imaanaya dal walba danu Soomaaliya dani kale Kenya dani kale waliba Kenyanka waa waxa hadda maxaan ku yiraahdaa maaragtay qaadka usoo dhiifiyo Soomaaliya laakiin waxa uma dhuufisa Kenya marka Kenyanku marka waxa waaye arrintaas barashada ka dhigayaan laakiin ma filayo in dawladda Soomaalidu ay arrintaas yani u darxiiso ama ay maaragtay talaabo jilicsan ay qaadi doonto. dad badan ayaa walaac ka muujiyay xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya xumaanshaha ku timid waxaana qaarkood ay sheegeen in arrintan saameyn ay ku yeelan karto ciidanka Kenya ee ku sugan gobolada Jubbooyinka qaybta ka howlgalka AMISOM. ciidamo fara badan oo ka socda dawladda Kenya ayaa waxay ku sugan yihiin deegaanada Jubbaland waxaana inta badan ay difaacaan maamulka Jubbaland oo dagaal xoogan kala soo horjeeda ururka Al-Shabaab taasi oo ay sheegeen dad badan in ay wiiqi karto howlgalka AMISOM gaar ahaan ciidanka Kenya ee ku sugan gobolada Jubbooyinka. markale Cabdiraxmaan Diinaari ayaa ka hadlaya suuragal inay tahay in howlgalka AMISOM gaar ahaan ciidanka Kenya ee ku sugan gobolada Jubbooyinka in uu saameyn karo xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Kenya ee xumaaday. ma taabanayso wariye arrintaas sababta waxay tahay Kenya ciidamada ka jooga waxay ku joogaan sharci ama heshiis ay AMISOM la gashay dawladda Soomaalida marka Kenyanku qayb ka yihiin haddii ay markaasi gaaraan in ciidankooda la baxaana sidaas oo kale dalal badan oo maaragtay geeska diyaar waa in ay bedelaan marka arrintaas ma filayo in dawladda Kenya la xadkaas ay ku degdegi doonto laakiin maaha arrin saameynayso sababtoo ah waxay ku joogaan magaca AMISOM iyo magaca UN. xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Kenya Macharia Kamawa ma uusan faahfaahin sababta Kenya go'aankan ay u qaadatay laakiin waxa uu ku adkaystay inay ahayd kadib markii uu adkaaday wada hadal dhex maray dawladda dhexe iyo dawladda wadanka Kenya oo ku aadanaa shirkii 7 bishan February ka dhacay magaalada London ee wadanka Britain oo looga hadlayay arrimaha shidaalka Soomaaliya kaasi oo sheegay in ceelalka ugu badan ee lagu soo bandhigay saameyntii laga sameeyay dhulka Soomaaliya uu ahaa kan ugu badan ee saameyntaas laga sameeyay halka muranka uu ka taagan yahay ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa
gaar ahaan dhulka ay leedahay Soomaaliya. muranka dhanka badda ee u dhaxeeya dalalka Kenya iyo Soomaaliya ayaa in muddo ah soo jiitamayay, waxaana sanadkii 2014 ay dowladda Soomaaliya maxkamadda cadaaladda adduunka u gudbisay dacwad ka dhan ah Kenya oo iyadu doonaysa in sohdinta badda ee labada dal la waafajiyo tan bariga. dacwadaas ayaa haatan hortaalla maxkamadda ICJ, waxaana garsoorayaasha ay ogolaadeen in maxkamaddu ay dhageysan karto dacwadda la xiriirta arrintan, inkastoo Kenya ay mar walba doonaysay in arrintan lagu dhameeyo qaab isfahan ah oo aan la ogeyn waxa ay Kenya ula jeedo. Kenya oo ay ku nool yihiin qaxooti badan oo Soomaaliyeed ayaa waxaa la garanayn halka arrintan ay ku dambeyn doonto, iyadoo sidoo kale ay jiraan ganacsato Soomaaliyeed oo fara badan oo xarumo ganacsi oo waaweyn ku leh magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaa sidoo kale jira mas'uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya oo haysta baasaboorka waddanka Kenya, taasoo isla xaray shirkii jaraa'id ee Makario Kamawa uu ku sheegay in ay yihiin dadkaasi ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya haystana baasaboorka waddanka Kenya cadowga waddanka Kenya, isagoo digniin u diray una sheegay inay ka soo baxaan dowladda dhexe ee Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya weli warkama ayna soo saarin arrintan, waxaana laga sugayaa jawaabta dowladda dhexe ee Soomaaliya waxay noqon karto, maadaama Kenya ay ku dhawaaqday in safiirkeeda ay u yeeratay kan Soomaaliya ee Nairobi ku suganna ay u sheegtay in dalkiisa uu ku laabto.